Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Allaha u naxariistay waxaa goordhow geeriyooday taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole ahaana taliyaha ciidanka booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad. Geerida taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxaa xaqiijiyay saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo taliska qaybta guud. Wararka naga soo gaaraya aagga deegaanka Basro oo u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax xooggan oo lala beegsaday gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo ka amabaxay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa wararka ay helnay waxa ay sheegayaan in uu qabsaday gaari uu saarnaa taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Allaha u naxariistay Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole xilli uu marayay meel u dhow deegaanka Basro oo dhowaan ay la wareegeen ciidanka dowladda Soomaaliya. Sidoo kale qaraxa ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo hadda howlgalla miina baaris ah ay ciidamada dowladda ay ka wadaan wadada xiriirisa Balcad iyo sidoo kale Basra. Saakay waxaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira duufaan Haramcad iyo Gorgor ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo sidoo kale Afgooye gaar ahaan deegaanada ku tirsan webiga inkastoo uusan halkaas ka dhicin dagaal u dhaxeeya ciidanka dowladda iyo sidoo kale xoogga Al-Shabaab. Haddaba daawade wixii faahfaahin intaa dheer waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe. Mahadsanidin.